magacaygu waxa la yiraahdaa Nuur Xasan Sheekh waxaan ka mid ah dadka deegaanka degmada Jowhar dadka inta badan qaybaha humanitarianka ama bini'aadanimada ka shaqeeya ayaan ahay Hormuud Telecom runtii waxaan adeegyada ay bixiso aad ugu mahadcelinaynaa oo aad ugu qanacsanahay sababtoo ah Hormuud waa adeegaha shacabka wax badan ay u qabato shacabka gaar ahaan waxaan xusuustaa Hormuud inay garab istaag u sameysay markii ay dhacaan arrimaha fatahaadaha iyo waxyaabaha disasterka la yiraahdo ama dhibaatooyinka musiibooyinka ama naturalka ama dabiiciga markay dhacaan Hormuud runtii waxay tahay ka jawaab celiyaha ugu horeeyo mar waliba ka jawaab celiyaha ugu horeeya mar walba ka jawaab celiya musiibooyinkaas dabiiciga ah waxaan xusuustaa mar uu dhacay musiibo dabiici ah halkan ka dhacday oo ahayd 2017 waxaan xusuustaa in cudur dilaac badan uu ka dhacay oo cholera treatment center laga furay Intersos isbitaalkeeda la waayay daawooyin oo solution ama faleembooyinka waxyaabahaas la waayay Hormuud ayaa ahayd shirkadii ugu horeysay kaalin ka qaadatay mugle inay ka jawaab celiso cudur dilaacaas ka dhacay magaalada Jowhar oo runtii aan lahayn adeeg oo markaa ku filan oo dadkaas loola tacaalo aan lahayn waxa kale oo Hormuud mar ay fatahaada dhaceen oo roobab mahiigaan tiro badan oo ka dhacay magaalada waxay sameysay biyo suur ay u sameysay magaaladan xilli magaalada biyo ay ku soo noqonayeen waxay sameysay drainage system ama meel biyo suur ah oo weyn ay ka qoday meel yiraahdo Badacas oo xaafadda Antiyada ka tirsan waxayna ahayd waxyaabo lagu diirsado oo bulshada reer Jowhar ay ku diirsadaan dad badan ayaa biyo ka galeen marka ay jawaab celinta sameeynaysa guryahoodii ka barakaceen caruur badan ayaa biyahaas ku hafatay Hormuud iyadoo fiirinaysa danta shacabka iyo danta magaalada Jowhar ay ahayd shirkadii ugu horeysay ee ka jawaabto arrimahaas fatahaadaha Hormuud mar walba waxay jeceshahay inay shacabka u dhawaato service-kan u dhaweyso hadda magaalada way baaxad weyn tahay wixii service oo dhinaca looga baahdo wixii shaqaale ah oo radio ah dhinaca joogo wixii service oo looga baahdo magaalada cornerkeeda kalena waxaa jira baranjiyaal oo ay dadka saysan ugu dhibtoonin socodka badan adeegay u dhaweysay macnaha waxyaabaha Hormuud ay qabato adeeg u dhaweynta iyo bulshada inay ku dhex jirto mar walba ay rabto